رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa hoygiisa kulan casho oo soo dhaweynaya ugu sameeyay waftigii ka socday dalka Turkiga ee uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga ee dawladda inuu la hadlayo Turkiga waxaana ka qayb galay kulankaasi xubno ka tirsan golayaasha dawladda Soomaaliya iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida kulankan cashada uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya u sameeyay waftigan ka socday Turkiga ayaa mid lagu muujinayay sida dawladda Soomaaliya ugu faraxsan tahay maatinka waftiga ka socda walaalaha Turkiga oo u yimid Soomaaliya xoojinta xiriirka walaaltinimo ee taariikhiga ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga gobolada fanka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee horseed ayaa munaasabada ka qaadayay heeso wadani ah iyo kuwa ka turjumaya xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga tilmaamayana kaalintii madaxweyne Erdogan ee garab istaagga shacabka Soomaaliyeed oo ay ku qaadayeen luqadda Turkiga waxa ayna aad u soo jiidatay isla markaana goobta ay heestu ka socotay u tagay wasiirka gaashaandhigga Turkiga iyo ra'iisul wasaare Khayre uga mahad celiyay habalada fanka sida xikmadaysan ay u soo bandhigeen xiriirka taariikhiga ee Soomaaliya iyo Turkiga Teşekkür ederiz yeni ekip merkezinin inşası ettiğimi için sizi teşekkür ederiz yeni ekip wasiirka gaashaandhigga ee dawladda walaalaha Turkiga Hulusi Akram oo ka hadlay cashada soo dhaweynta ee uu sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyay soo dhaweynta uu sameeyay isla markaana xaqiijiyay in xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga uu yahay mid dhab ah personally and on behalf of my delegation thank you all for everything from the very beginning anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca wafdiga aan hogaaminayo waxaan idin leeyahay mahadsanidin dhammaantiin walaalaha Soomaaliyeed sida aad noo soo dhaweyseen oo aad noo martigeliseen mar kale aad ayaad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed nabad waqtiga dhow iyo mustaqbalka walaaltinimo dhab ah iyo saaxiibtinimo dhab ah ayaa naga dhaxaysa ma ahan dhaqaale ma ahan dana gaar ah waa walaaltinimo iyo bini'aadanimo and we came here without knowing anything neither strategy nor economy nor the potential nor something else but just holding the humanity holding the brotherhood holding the religion the brotherhood Basra Bashir Ali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho